waxaa 23 Febraayo 2017 loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo lagu soo xushay karti shaqo iyo khibrad 7 cisho kadib magacaabistiisa 1 Maarso 2017 waxaa si aan kala har lahayn oo aqlabiyad ah ku ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya xasan cali khayre wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii shanaad ee ugu waqtiga dheeraa Soomaaliya laga soo bilaabo dawladdii daaqiliga ahayd ee Cabdullaahi Ciise 1956 waxqabadkiisa iyo isbeddelkii uu dalka ka sameeyay intii uu xukuumadda hogaaminayay waxaa qiray mucaarad iyo muxaafid waxaa lagu bartay xasan khayre in uusan ahayn kaliya hogaamiye aragti dheer leh qorshihiisuna cad yahay kuna dhiiran qaadashada go'aanada adag iyo fulintooda markii uu xafiiska joogay muddo 70 cisho ah ayuu dadka hor yimid una cadeeyay in uu ku shaqaynayo run iyo sharci diyaarna uu u yahay in uu xilkiisa ku waayo haddii taas laga hor yimaado ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu xasan khayre ku soo kordhiyay shaqada waddankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan u maalintii uu xafiiska la wareegay wuxuu wajahay xaqiiqooyinkii dawladnimada ee isla xisaabtan la'aanta ku dhisnaa waxaana lagu wareejiyay 2 Maarso dukumiintiyo iyo qasnad eber ah oo aan wax dhaqaale ah ku jirin musharax madaxweyne xasan cali khayre intii uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka kama reebin in uu runta dhinac maro markii ay dadka Soomaaliyeed ugu baahida badnaayeen wuxuuna fuliyay ballanqaadkiisii markii uu 9 Juulaay 2020 sacad u sheegay in jidka kaliya ee dalka u furan uu yahay doorasho heshiis lagu yahay wuxuu ka sii digay haddii doorashada xilligeeda lagu qaban waayo inay dalka taasi u horseedi doonto qalqal amni iyo mid siyaasadeed ayna waxyeello gaarsiin doonto dadaalkii loogu jiray dib u soo kabashada dawladnimada Soomaaliya doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoonto waqtigaasna si ay ugu qabsoonto waa in la geliyo xoogga ugu badan oo la geli karo sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaasa siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri runtaas ayay ahayd midii keentay in ay ku kala tagaan madaxweynihii dalka kadibna sababtay in la abaabulo mooshinkii buuqa ku dhammaaday ee madaxda baarlamaanka tobnaad ka shaqeeyeen 25 Juulaay 2020 kaasoo ay sharci darro ku tilmaameen sharciyaqaanada mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka khayre markii ay taasi dhacday isagoo awooda in uu sharciga ku taagnaado ayuu qaatay go'aan kale oo culus wuxuuna doortay inuu xilka uga tago sababaha soo socda awgood waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu tiro shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho dalkan rajayaan ka leenahay kulligeen dalka ayaa kulligeen inaga weyn cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo maanta waa maalinteedii aniga ayaa u turay dalka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo wuxuu dalka iyo dawladnimada uga turay dagaal awoodeed iyo mid dastuuri ah xusuuso waqtigii dalka iyo dadka uga soo lumi jiray khilaafyadii madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaareyaasha dibna u eeg dhaawacyada dawladnimada ka soo gaaray ishaysadka madaxda dalka oo inta badan ay ku dhex jiri jireen dalalka dariska iyo beesha caalamka laga soo bilaabo Cabdiqaasim iyo Cali Khaliif 2001 Cabdullaahi Yuusuf iyo ra'iisul wasaareyaashiisii Cali Geedi iyo Nuur Cadde 2007-2009
heshiiskii Kampala Accord ee laba Shariif iyo Farmaajo 2011 ilaa iyo Xasan Sheekh iyo labadiisii ra'iisul wasaare ee mooshinada iyo qalaasaha lagu diray Cabdi Shirdoon iyo Cabdiweli Sheekh 2013-2014 waxay ahayd in Soomaaliya ay ka korto mooshin iyo xilka qaadis aan loo marin sharciyada dalka u yaala sida xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka waxayna mar walba oo taasi dhacdo ay ceyb ku tahay dawladnimadeena oo muddo 30 sano ah ku dhex nooleed xayndaabka khilaafka madaxda sare ee dalka waxayna Soomaaliya ka bixinaysaa muuqaal xun oo ah in aysan isxukumi karin oo sharci darro ay u barteen xasan khayre markii uu xilka ka tagay sida ra'iisul wasaarayaashii hore u badnaayeen ma dhicin inuu dalka ka tago dibna ugu laabto qurbaha balse wuxuu dagaal u galay sidii dalka loogu soo celin lahaa jidkii uu ka leexday ee ahaa in 4 sanaba mar doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne dalka ay ka dhacdo isagoo awoodiisa iyo miisaankiisa ku biiriyay midowga musharaxiinta wuxuu ka dhex muuqday dhammaan halgankii loo galay ka hortagga muddo kororsigii ay ku dhaqaaqeen madaxdii baarlamaanka tobnaad iyo madaxweynaha dalkana geliyay qalaasaha musharax madaxweyne xasan cali khayre wuxuu yeeshay hal adeeg uu dadka ku hor yimaado runtana uu sheego karti uu ku diiday inuu ka mid noqdo koox danley ah oo muddo kororsi sharci darro ah doonaysay iyo weliba geesinimo uu isla kooxdaasi kula halgamo si dalka loogu soo celiyo nidaamkii lagu heshiiyey iyo doorasho wuxuu hadda u taagan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa yar musharaxa isku darsaday tilmaamahaas aan soo sheegnay haddana xog ogaal u ah fursadaha ay Soomaaliya haysato iyo sida looga faa'iideyn karo dadka iyo dalka